ereyga adii muuqda waa erey English ah haddii aan ku dhawaaqno waa date waxaan rabnaa in ereygan oo ah date aan ku fasirno saddex erey oo af Soomaali ah saddex erey oo u dhigma halka erey oo kaliya marka waxaan rabnaa kaliya halka erey inaan ku barno muuqaalkeena maanta ereyga date markaad maqasho waxa laga yaabaa isla markiiba in maankaaga ama maskaxdaada ay ku soo dhacdo taariikh af Soomaali ahaan laakiin waxaa jirto laba erey kale oo af Soomaali ah loo macnayn kara ama lagu fasiri kara haddii ay jirto intaanan sheegin ka hor haddii aad taqaano waxaad noogu reebi kartaa faalada hoose ama commentiga hoose ereyga ah date waa taariikh ereyga koowaad aan ku fasirayno ereyga labaad haddii aan macnayno ereyga ah date waxaa kaloo lagu fasiri karaa lagu macnayn karaa labada qofood ee lamaanaha ah يعني markay xiriir ay sameynayaan oo kale waxaa la yiraahdaa hasaabe ama shukaansi hasaabe ama shukaansi labadaas erey afka Soomaaliga waa isku mid shukaansi ama hasaabe ereyga date waxaa kaloo lagu fasiri karaa macnaha labada wuxuu noqon karaa shukaansi ama hasaabe ereyga saddexaad maxaa leedahay uu noqon karaa ereyga date macnaha saddexaad wuxuu noqon karaa haddaan macnayno ereyga saddexaad waxay tahay waa timir aad taqaana Soomaa laga yaabaa ereyga saddexaad wuxuu noqon karaa inaad iloodi laakiin timirta cunideeda ama sida loo cuno yani ma iloodi Soomaa intaas waa kaftan marka muuqaalkeena waxaan rajeynaa in waxyaalo badan aad ku baratay insha Allah ereyga ah date waxaa loo fasiri karaa saddex macnood كو wuxuu noqon karaa shukaansi ama hasaabe laba wuxuu noqon karaa ereyga ah date taariikh saddex wuxuu noqon karaa maxaa la yiraahdaa timir muuqaalka intaas ku ogyahay assalaamu calaykum bye bye